بسم الله الرحمن الرحيم كل وناكسن داوديا waxaan idinku haynaa muxuu yahay gantaalka mucjisada ah ee laga yaaban yahay ee Shiinaha uu soo bandhigay gantaalka magaalo dhan daminaya hadii ay noqon lahayd dhanka isgaarsiinta iyo korontada waliba isagoo aan gurina burburin dadna dilin waa arrin cajiib ah gantaalkan oo saacadihi la soo dhaafay warbaahintu ay aad u hadal hayso isla markaasna walwal ku abuuray jasiiradda Taiwan oo Shiinaha uu sheegto inay ka tirsan tahay laakiin iyadoo madax banaanida doonaysa iyo waliba Mareykanka oo ciidamo aad u fara badan ka joogan gobolka walwalkan ayaa waxa la sheegayaa inuu ku aadan yahay gantaalkan oo lagu tilmaamay mid ka mid ah gantaalada ugu casirsan adduunka warbixin amuurtan ku aadan iyo waxa khibrada ay ka tiri iyo faahfaahin la xiriirta gantaalkan mucjisada ah ayaan barnaamijkan soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo beer waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wahagaag tartanka dunida ay ugu jirto hubka ayaa xoogeysanaya warbixin dhawaan ka soo baxday macadka Sibri ee cilmi baarista ku sameeya awoodda caalamka ee quwadaha militariga iyo hubka ay waxa uu sheegay dhowrkii sano ee la soo dhaafay inuu aad u xoogeystay tartanka hubka iyo ishubaynta xitaa dhowrka wadan ee ku hubaysan nuclearka ayaa waxay bilaabeen inay dib u casriyeeyaan barnaamijyadooda nuclearka gaar ahaan hubka iyadoo sidoo kale la sheegay in lagu kordhiyay madaxyo dheeraad ah nuclearka la haysto tani markii uu bilowday dagaalka Ukraine dunida waxaa ku soo saaciday cabsida laga qabo dagaal nuclear oo dhaca xiisadda imika ka aloosan bariga dhexe waxay ka mid tahay xiisadaha caalamka laga cabsi qabo in ay isku bedesho dagaal ballaaran oo dhexmara quwadaha waaweyn sidoo kale dagaalka Ukraine ayaa wadanaha farta lagu hayaa inuu isku bedelo dagaal toos ah oo dhexmara wadamada NATO iyo Ruushka oo faraha foodooda isugu taagan gacanka Korea xiisad culus ayaa ka taagan sidoo kale badda koonfureed ee Shiinaha ayaa si weyn la iskugu haystaa gaar ahaan muranka u dhaxeeya Shiinaha iyo Philippines oo Mareykanku xagga dambe uu ka taagan yahay gacanka Taiwan ayaa sidoo kale xiisad ay ka aloosan tahay dhowr jeer Shiinuhu halkaas waxa uu ku soo bandhigay dhowr tusaale military oo mid ka mid ah la sheegay in uu ahaa sida iyadoo Shiinaha uu qabsanayo wadankaas ama jasiiradda Taiwan oo Shiinaha ka irdhowday haddaba waxaan idin haynaa xog cajiib ah oo la xiriirta gantaal Shiinaha uu soo bandhigay waxa lagu magacaabaa bamka madow maxay tahay sababtu sida halkan kaga muuqata gantaalkan mar allaale iyo marka la rido waxa ka sii dhalanaya ama ka sii baxaya gantaalo kale isagoo aan hal qofna dilin ayaa waxa la sheegay in magaalo dhan uu korontadana ka damin karo isgaarsiintana uu damin karo isla markaasna uu jam ka dhigi karo ama uu carqaladeyn karo nidaamka isgaarsiinta raadarada iyo wax walba oo lagu wada xiriiro haddaba aynu eegno warbixin telefishinka CCTV laga leeyahay ee wadanka Shiinaha oo ka diyaariyay arrintan dawladda wadanka Shiinaha ayaa waxay shaacisay hub cusub oo halis ah oo loo yaqaano bamka madow kaas oo awood u leh inuu gabi ahaan cuuriyaamiyo nidaamyada korontada daldan ma ahan magaalo daldan iyadoo aan la burburin dhismayaal ama aan la dilin xitaa hal qof hubkani si rasmi ah waxa loogu yaqaan bambaanooyinka graphite-ka waa hub aan wax dilin balse si weyn u dhaawici kara kaabayaasha korontada isagoo sii deynaya daruuro ka kooban xariijimo kaarboon ah oo sababi kara koronto gaabiyo ballaaran fikradaha gantaalkan ma ahan mid cusub Mareykanka ayaa horey wuxuu u isticmaalay gantaalo caynkan oo kala dagaalkii Khaliijka ee Ciraaq iyo dagaalkii Serbia laakiin bamkan Shiinuhu waa uu ka qatarsan yahay 85% kii Mareykanku uu isticmaalay noocan cusub ayaa waxa la sheegay sidoo kale inuu ka horumarsan yahay iyadoo la adeegsanayo habab toos ah oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo isku darka kiimikooyin cusub oo wax ku ool ah muuqaal dhawaan uu baahiyay telefishinka dawladda Shiinaha ee CCTV ayaa waxa uu muujinayaa
tijaabo toos ah oo lagu samaynayo hubkan iyadoo gantaalka laga soo riday baabuur dhulka yaal ayaa hawada waxaa la sheegaya inuu ku sii daayey 90 kale oo bambaanooyin yaryar ah bambaanooyinkan yaryar ayaa sii daynaya xariijimo yaryar oo kaarboon ah kuwaas oo si dhab yar u dhexgelaya hawada kuna dhacaya xarumaha korontada gaar ahaan dabdhalayaasha nidaamyada isgaarsiinta waxaana la sheegayaa in waddan dhan gebi ahaan buu noqon karo koronto la'aan iyo isgaarsiin la'aan hubkan waxaa lagu talagalay inuusan burburin dhismayaasha laakiin uu carqaladeeyo nidaamyada ugu muhiimsan waana astaanta dagaalka casriga bamkan ama gantaalkan lagu magacaabo bamka madow waxaa la sheegay in loogu talagalay in lagu bartilmaamaysto awoodda cadowga ee dhanka isgaarsiinta iswaafajinta iyo jawaab celinta kaasoo magaalooyin dhan gelin kara fawdo iyo qarbudaad iyadoo aan xitaa hal xabba la ridin qobarada arrimahan ka faallootay ayaa waxay sheegayaan in inkastoo dowladda waddanka shiinuhu aysan soo bandhigin madaxyada qaraxyo ee ku rakiban gantaalkan haddana la aaminsan yahay in culayskiisu uu yahay 490 kilogram ama waxyaalaha qaraxa ee ku xiran wuxuu gaari karaa ilaa 290 kilomitir taasi oo ka dhigaysa mid ku habboon weerarada istiraatiijiga ah oo lagu adeegsado kaabayaasha tamarta ee cadowga qobarada waxay aaminsan tahay in Taiwan ay noqon karto bartilmaameedka ugu weyn ee lagu adeegsan karo bamkan ama gantaalkan haddii dagaal uu dhaco maadaama curyaaminta shabakadaha korontadu ay si weyn u weeqi karto awoodda difaaca ee jasiiradda ka hor inta ciidamada shiinuhu aysan duulaan toos ah ku qaadin gantaalkan cusub waxa uu muujinayaa isbeddel weyn oo ku yimid xeeladda dagaal ee shiinaha kaas oo hadda xoogga saaraya dagaal toos ah oo lagu beegsanayo nidaamyada halkii la beegsan lahaa askarta tani waxay sidoo kale caddayn u tahay sida shiinuhu uu doonayo inuu la jaan qaado awoodaha cusub ee Mareykanka ee ku wajahan dagaalka digitalka ama elektroonikada inkastoo si rasmi ah aan shaaca lagu qaadin magaca ama heerka howlgalka gantaalkan haddana waxaa la rumaysan yahay inay samaysay shirkadda shiinaha ee cilmi baarista iyo teknolojiyadda hawada taasi oo ah shirkad dowladda ay leedahay oo si dhow ula shaqaysa wasaaradda difaaca ee dalka shiinaha macluumaadkan ayaa waxaa la sheegayaa in shiinuhu uu ugu talagalay gantaalkan inuu ku beegsado awoodda difaac iyo tan ciidan ee cadowgiisa waxaana la sheegayaa tan sidoo kale inay qayb ka tahay awoodaha qarnigan cusub ee dhanka dagaalka waxaana sidoo kale tan ay ku soo aadaysaa xilli Mareykanku uu sheegay qatarta ugu weyn ee uu wajahayo inay tahay shiinaha dhawaan intii ay socotay xiisadii u dhaxaysay Mareykanka iyo Xuutiyiinta Mareykanku waxay sheegeen in hubkan ay ku isticmaalayaan ama duqeymaha ay ku isticmaalayaan Xuutiyiinta loo baahan yahay in la beeqaamiyo si haddii dagaal shiinaha ay ula galaan loo adeegsado mas'uuliyiin ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee waddanka Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka shaqeeyay in hubka lagu isticmaalay Yaman inta badan loo baahan yahay haatan in loo isticmaalo shiinaha oo qatar weyn ay ka soo wajahaysa Mareykanka oo si hadalka loo dhigay inkastoo shiinuhu uu ku andacoonayo in hadda qatar weyn aysan isku ahayn Mareykanka laakiin diyaar garowga shiinaha oo wada xagga awoodda ciidanka tan badda maraakiibta oo dhisay iyo guud ahaan macluumaadada ugu dambeeya ee dhanka teknolojiyadda casriga iyo diyaaradihiisa oo wacdara ka dhigay dagaalkii Hindiya iyo Pakistan ayaa waxaa la sheegayaa shiinaha imika inuu u xiibsiibanayo quwad weyn oo ka mid ah quwadaha ku noolamaya caalamka oo markii hore shiinaha uu ka ahaa kor joogto laakiin hadda uu ka mid yahay ciyaartoyda garoonka ku jirta sida khibradu ay sheegayso waa tahay dabcan arrimahan waxay ku soo aadayaan sidoo kale iyadoo xiisadaha adduunkuna cirka isku sii shareerayaan wixii macluumaad ah ee dheeraad ah ku saabsan gantaalkan barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga HBN waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka aragtidaadana qaybta hoose inoogu reeb si aad u aragto macluumaadkan aynu soo gudbinayno waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo